Somaliland ama dadweynaha waxaan ku wargelinaynaa in galabta garoonka diyaaradaha ee Hargeysa lagu qabtay nin Masaari ah oo halkaa ka dhoofayay shandad buuxda oo xayawaanka xamaaratada caashabarida loo yaqaana taasoo tirada lagu qiyaasay ilaa 200 oo xabbo oo si qarsoodi dalka uga dhoofinayay xayawaankaas muddo dheer baa booliisku daba socday dad noocaasa Masaari iyo noocyo kala duwan oo mar walba ka dhoofiya garoomada ama dekedaha inta duurka ka soo guraan galabta gacanta lagu hayaa ninkii waa la xidhay sida ka muuqata shadalaha iyo maryahaas waa laga halka caaga ku gurnay ilaa 100 xabbo oo maryihii laga furay lagu qariyay qaarna shadadaasay ku jiraan qaarna maryahaasay ku jiraan ciidanka booliisku isagoo ka warhaya in xayawaan badan oo noocaas oo kuwa waaweyn iyo kuwa xamaarata ah dalka laga dhoofiyo oo ay tahay dambi qaran xaalufin lagu hayo duurjoogtii ama xayawaankii dalku dareeciga u lahaa galabta kuwa la soo qabtay waxaan ku wareejinay wasaaradda deegaanka oo iminka dhinacayga taagan yahay agaasimaha duurjoogta waxaan dadweynaha ku wargelinaynaa inay la socdaan khatarta lagu hayo xayawaankii duurjoogta ah ee dalka laga xaalufinayay ama nabaad guur lagu sameynayay oo cid kastoo urursanaysa ama dhalinyarada ciyaalka u dirsanaysa ama reer miyiga ay qabtaan oo la dagaalamaan arrintaa muddo dheer bay iska kaashanayeen ciidanka booliiska iyo wasaaradda deegaanka habeen waxaa ka shira dhowr goor baa siminaaro iyo shirar laga qabto wasiirka deegaanka iyo taliyaha ciidanka booliisku iminkana waa ku sii daba jirnaa waa sii wadaynaa dadweynaha taasaanu ka codsanaynaa inay nagu gacan siiyaan sidii loola dagaalami lahaa dadka shaqajaanka ah ee xayawaankii dalka sidaa u ururinaya aan ilaa xamaarata ka tegin ilaa xamaaratadii aan ka tegin waxaan halkan kala wareegaynaa ciidanka booliska annagoo ah wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyadoo howlgal maanta lagu qabtay madaarka Cigaal International Airport nin Masaariya oo doonayay inuu si qarsoodi u dhoofiyo 200 oo nooca loo yaqaan xamaaratooyinka waa markii saddexaad waxa weeye ciidanka iyo wasaaradda ay ka wada shaqeeyaan dadka khayraadkeena dalka ka saaraya gaar ahaan nooca loo yaqaan xamaaratooyinka waxa weeye dalku sharci buu leeyahay xeerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta wuxuu sheegayaa inay sharciyan mamnuuc tahay in duurjoogtu nooc kastoo ay tahay dalka laga saaro runtii waxaan u mahad celinaynaa ciidanka booliska meel walay ku sugan yihiinba iyo ciidamada kala duwanba howlgallada kala duwan ee noocyada kala duwan ee duurjoogta had iyo habeenba heeganka ugu jiraan sidii khayraadka dalku leeyahay loo badbaadin lahaa